السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد ربي وأسلم على نبيه الكريم. أما بعد إخوتي الكرام، xaaladda ummaddu ay ku sugan tahay iyo dhibaatooyinka iyo fasaadka faraha ka sii baxayo social mediaha waxa ka socda dhalinyarada dhibaatada haysata waxaa dareemi kara qof caqiida ahaan u bad qaba dareen diimeedna oo ku jiro qofkaas unbaa dareemi kara. ama kan adduunyada iyo dhadhalalka adduunyada danaynaya ka wuxuu u arkaa wax fasaadkan iyo xaaladan jirto uma arka wax saas wax weyn saas kamaba soo qaadaya. yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya, adduunyada muuqaalkeeda unbay garanayaan. xisaabaadkaas adduunyada kii ka soo baxay u yaqaanaa rag iyo door. haba noqda kaas adduunyada yaqaan qof jaahila oo shanta salaadood sida loo gudanayo aanan aqoonin, haba noqdaba asiga umaba qusayda. xaaladaha taagan ee foosha xun waxaa ka mid a gabdho iyo wiilal waxa ay samaynayaan dhaqanka islaamka sal iyo raatoona aan ku lahayn, habeen iyo maalin u taagan xumaanta sida ay u faafi lahayd. waa ay fakirayaan, waxaa laga yaabaa inay ku qaadato saacado, qarash ayay ku bixinayaan. ogaa waxa ay inta gelinayaan waxa ay ku iibsanayaan diinkooda. ina aladiina yashtaruuna biaayaati illaahi thamanan qaliila, ayagoo qaawan ayay isdhex marayaan. waxay leeyihiin riwaayado ayaan samaynaynaa, gabdho iyo wiilal kale ajaaniba ayaa qol layskula xaraynayaa. midkood sida uu rabay isku qabsanayaan, garbahay iska qabsanayaan, waa ay istaabanayaan, gabadha cawradeeda muuqata. midkood jahliga heesta waxaa ka mid a maba garanayo gabar kaa ajnabiya inuu taabta inay xaaraan tahay. miyadan ogeyn gabar kaa ajnabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay qofkiin in madaxa mudac ama bir madaxa looga shaqeeyo looga mudmudo in ay qofka kala fududahay gabar ajnabi uu taabto. waxaa la yaab leh in ay yihiin dhalinta dhaqankaas wadata kuwa ku adag kuna qanacsan wadada ay hayaan laba sabab daraadood. jahli haysta awey, jaahil wey, ma garanayo diin, aayad ma fasiri karo, qur-aan wax kala ma socdo. maalinkii la baraa ugu dambeeyay xadiisna iska daa, wacdi meel ka socdana hal daqiiqa iyo hal sekond dhegaysan ma karo, dhegihii baa ka daboolan. ilaahay subxaanahu watacaala maradkii uu sheegayaa ku dhacay fii quluubihim marad khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim, amraadii nifaaq oo dhanaa haysata iyo shaydaankii oo qurxinaya falalkooda iyo oraahyadooda. fazayana lahum ashaydaanu acmaalahum, shaydaankiyaa u qurxiyey acmaashii ay samaynayeen, wuu u qurxinayaa. xidigaa tahay, qof caanahaa tahay, warkaasuu dhagaha ugu shubaya, markaasuu ismoodaya qof horumar gaara. intuu horumarka gaaro, qofaan aayad fasiri karin, qofaan xadiis fasiri karin, intuu horumarka haystaa dhibaatadaasa haysato. dabciga munaafiqa waxaa ka mid a maba jecla mu'miniinta rumaysan eeba oo ka shaqaynaya wadada khayrka ma jecla. eeba asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas, marka lagu yiraa rumeeya sida dadku ay u rumeeyeen allah subxaanahu watacaala, waxay leeyihiin qaaluu anu'minu kamaa aamana sufahaa, ma waxaan u rumaynaynaa dabaaladu sida ay eeba u rumeeyeen oo kale. saamaan u rumaynaynaa. waxay ku tilmaamayaanba mu'miniintii sufaha ayay ku tilmaamayaan. waa dabciga munaafiqiinta. waka eeba asagoo tilmaamaya nabi maxamed la hadlaya wuxuu yidhi wain tusibkum sayi'a yafraxuu biha, haddii xumaan ay idin taabato way ku farxayaan. haakadaa dabcu lmunaafiqiin, munaafiqiinta dabcigooda waa kaa. saas darteed ayay u bateen xilligan kan heesaya, kan heesaha faafinaya una bixiyey magac la dhahayo reaction, ee caruurtii xiskoodu yaraa ka iibinaya ugana dhigayo ilbaxnimo. ogow maalin kasta wuxuu ku hayaa waxaa tahay taageerahayga, waxaa tahay faamigayga. saas daraaddeedna adigu waad ku farxsan tahay oo kommentiyadooda markaad fiirido waxaad ku arkaydaa dad keep going, waa fiican tahay, legend iyo wax saas ku qorayaad arkaydaa. dhibaatadaasaa haysato. dadkii waxay ku dhiirigelinayaan xumaantiisay kusii dhiirigelinayaan. waa hubaal qofka haddii garabkiisa laga bixi lahaa xumaantana aan lagu dhiirigelin lahayn uu ka joogsan lahaa, sababta uu ka niyajabi lahaa. saas laadligeeda qof waliba xumaan ku taagan oo maanta social media wax ka faafiya, xumaanna ka faafiya, wuxuu haystaa dad taageerayaala. war hooy ilaahay uga cabsada, arinku saas maahay, ha laga joogsado. inta yaroo eebba ka badbaadiyey eebbana uu doortana war hooy shaqadiina ha gebina, ummadda wax u sheega oo ummadda la wadaaga khayrka. waxaa laga yaabaa boqolaalkaas kumanaankaas dhibaatada iyo boholkaas kusii dhacaydo markii wax loo sheego, dadka wax sheegana ay bataan in badan inay kasoo badbaadaan. inta khayrka ilaahay subxaanahu watacaala waafaji rabana uma baahno wadooyin tiro badan, uma baahno in daliilo badan loo keeno. ilaahay qofkuu khayrka la doono kelimaad koobana ku filan. kan xumaanta taageersan
oo maalin kasta yacni u gala social media u taagan goobaha yacni ganacsiga u taagan sida uu xumaanta ku faafi lahaa khayrkuna uu dhibayo waad xanuunsan tahee allaha ku caafiyo famaa calaya ila albalaaq anigana dusheeda ma saarno inaan khayrka idin soo gaarsiiyo mooye wax aan ku doonayana ma lahan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu